Assalaamu calaykum. Maanta casharkeenu wuxuu ku saabsanaan doonaa daily routine ama home activities. Waa daily routine waxyaalaha waxqabadka maalinlaha ayaa la dhahdaa daily routine. Home activities waxyaalahan waxqabadka guriga ayaa la dhahdaa. Marka halkaas ayaan ka bilaabi kasii wadi doonaa. Maalin baa dhowrkii cishaba laba cish wiigii wax isku dayi doonaa inaan laba cisho ka mid ah soo qaadano vocabulary-ga insha Allah bismillaahi kariim. Marka wake up waa toosin wake up waa toosin get up waa kac get up waa kac wash your face dhaq wejigaaga wash your face wejigaaga dhaq wash your face wejigaaga dhaq rinse your face wejigaaga biyo raaciyo kale ama foldhaq dry your face wejigaaga qallaji your face wejigaaga brush brush your teeth ilkahaaga caday oo brushkaas la dhahdaa brush ayaa la dhahaa brushka. Marka brush your teeth ilkahaaga caday take a shower qaado maydhi qaado qofka markuu doonayo inaa maydho ayaad ku odhaysaa take a shower shave oo markan garhka la iska xiira la dhahaa shave get dressed waxa la dhahdaa marka la labisanayo oo labiso kale macnaha get dressed labiso comb your hair timahaaga shanlee ama fair timahaaga comb your hair timahaaga shanlee comb your hair timahaaga shanlee put on make up marso kale marka make upka la marsanayo la dhahaa put on make up eat breakfast quraacda cun eat cun breakfast quraacda. Marka casharkii intaasuu ku ekaan doonaa insha Allah waan soo badin doonaa haddii aad ka heshay insha Allah sii faafi casharadan intaan cashar dambe ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.